intuu hagaajinayay dharkiisa shaqada waardiyihii amniga ayaa si lama filaan ah u arkay kab ka soo baxaya hoosta daaha. Isagoo feejignaan buuxda leh ayuu isla markiiba u dhaqaaqay si uu u hubiyo. kadib markii uu dilay waardiyaha, gacan ku dhiiglaha wuxuu si toos ah ugu socday bartilmaameedkiisa, balse waxaa hor istaagay waardiye kale oo amni. isagoon laba-labayn ayuu qori kor u qaaday wuuna toogtay isagoo isla markiiba dilay. kadibna si toos ah ayuu u galay qolka bartilmaameedka. markii bartilmaameedkii arkay dilaha wuxuu isla markiiba garwaaqsaday in geeridiisu timid. markii uu dhammeeyey hawshiisii oo uu isku diyaarinayay inuu baxsado, wareer aad u daran ayaa si lama filaan ah maskaxdiisa u qabsaday. isagoo dareemaya cabsi iyo shaki ayuu maalinta xigtay isbitaalka aaday si loo baaro. halkaas ayuu dhakhtarku ku wargeliyey inuu qabo cudurka Creutzfeldt-Jakob oo ah cudur halis ah oo maskaxda waxyeeleeya. gacan ku dhiigle xirfadle ah, xanuunkan ku dhaca waxay ka dhigan tahay in shaqadiisu dhammaatay. waxaa ka sii daran, cudurkan wax daawo ah ma leh. iyadoo uu haysto 3 bilood oo keliya oo uu noolaan karo, xaqiiqda qadhaadh waxay ku riixday inuu ka fikiro isdiil. laakiin markii uu arkay sawir isaga iyo saaxiibtiisa, wuxuu go'aansaday inuu wax macno leh sameeyo ka hor intuusan dhiman. wuxuu iibsaday caymis shil oo aad u weyn, wuxuuna saaxiibtiis u qoray inay noqoto qofka keliya ee lacagta qaata. maadaama caymisku uusan bixinayn haddii uu isdilo ama uu si dabiici ah u dhinto, wuxuu go'aansaday inuu kiraysto gacan ku dhiiglayaal kale si ay u dilaan, isagoo u cayimay wakhtiga dilka inuu noqdo saqda dhexe ee habeenkan. isagoo si deggan u fadhiya oo sugaya geerida, dhakhtarkiisii ayaa si lama filaan ah u soo wacay. warka ayaa noqday mid lama filaan ah, qalad ayaa dhacay. ma qabo cudurkaas. baaritaanno badan kadib, isbitaalku wuxuu qirtay inay isku qaseen faylashiisa iyo qof kale. wuxuu si degdeg ah u eegay saacadda. waxaa haray 5 daqiiqo oo keliya wakhtigii dilkiisa la qorsheeyey, gacan ku dhiiglayaashiina horay ayay u hareereeyeen dhismaha. dhakhtar, waan ku soo wacayaa mar kale, ayuu yidhi.